mustaqbalkaaga hadda ha go'aamin. Nebiyada oo dhan waxa ay soo wada raaceen adhiga, see markii dambe waxa ay hoggaamiyeen ummado kala duwan. miyaad ka liidataa maroodigii diiday inuu dumiyo kacbada? miyaad ka liidataa shimbirkii soo islaamiyey qoomkii lunsanaa? miyaad ka liidataa quraanjadii beddeshay jihadii ciidanka? jawaabtu waa xaggaaga. maxaad isla weynaysiinay? maxaad cagaha kor ugu qaadqaaday? allah baa weynaanta xaq u leh. shalay candhuufo isjiidjiidanaysa ayaa lagaa abuuray. shalay socodkaa lagu barayey, hadalkaa laguu toostoosinayey. maalin dhowna sariirtaad jiiftaa oo waxaad sugaysaa xabaashii cidlada ahayd. markaa maxaad la kibraysaa oo cagaha u qaadqaaday? waxaad tidhaahdaa markaad subaxii soo toostid, qof kasta oo muslim ah waa uu iga sharaf badan yahay. eeg kan nadiifinaya suuqa, haye waxaa laga yaabaa inuu mushaharkiisu yar yahay, waxaa laga yaabaa inaanu helin cunto ku filan, haddana waa uu ku qanacsan yahay waxa uu ilaahay siiyey. waxaad tidhaahdaa kaasi waa iga sharaf badan yahay, waa iga karaamo badan yahay. markaasuu ilaahay adigana kor kuu qaadayaa. midhee maad maqlin ama sheekooyinka kumaad maqlin? biyaha haddaad istiraahdid dhagaxa ku rid, dhagaxa hoos ayuu u degayaa, qoriguna dusha ayuu sabeenayaa. mar kastaad iskibirsid hoos ayaad u degaysaa. mar kasta aad dadka u dabacsanaatid, aad noqotid qof dabacsan, haddana qof qalbigiisu yahay qof ilaahay ku xidhan. taasi macnaheedu waxa ay tahay marka aad kibir badan tahay hoos ayaad u degaysaa oo dadku hoos ayay kuu eegayaan. wiil baa la sheegaa inuu u yimi aabbihiis isagoo u ashtakoonaya, waxaana uu ku yidhi, aabbow, dadku hadallo fara badan ayay iga sheegaan, dadku shaqooyinkayga ayay soo farageliyaan. kadibna waxa uu ku yidhi, aabbe, dadku waxa ay kugu yidhaahdaan intaad warqad ku qortid, cagahaaga hoostooda dhig. wiilkii sidii ayuu sameeyey. kadibna warqadihii ayaa farabatay, isagiina waa sarreeyey. yacnii arrinku waxaa laga wadaa dadka ayaa ku soo shacsaaraya, dadka ayaa kor kuu qaadaya, ayaguna isma oga inay adiga kor kuu qaadayaan. haddaad dadka u dabacsanaatid, nolosha horumar ayaad ka gaadhaysaa. ilaahay waxa uu leeyahay, irxamu man fil ardi yarxamukum man fisamaa. u naxariista dadka dhulka jooga, idinkana samada ayaa la idinka naxariisanayaa. samada maaha keliya in la idinka naxariisanayo, roob la idiin soo shubayo, lacag la idiin siinayo, waa ku kaa ma aha. laakiinse ilaahay dadka ayuu kuu fududeynayaa, dadka ayaa ku jeclaanaya, ummadda ayaa ku jeclaanaysa. ummaddana waxba kama waayi doontid. dadkana waxaad u noqonaysaa hoggaamiye toosan, waddada toosan ku hanuuninaya. ayaguna waxa ay kuu sheegayaan wixii xaq ah, waayo dhasamada ayaa lagaaga naxariisanayaa oo qulubtooda lagu beerayaa galkacda ay adiga kuu qabaan. furaha horumarku waa sidaas. meel kale ha ka raadin furaha, meel kale ha ka raadin inuu ilaahay kugu naxariisto, meel kale ha ka raadin inaad farxad ka heshid. keliya ka raadi dadka waddooyinka taagan ee dadka wax weydiisanaya, si markaas ayaad farxad dareemaysaa. dhegaystayaal, fariintan waanada ah waxaa idiin soo gudbiyey bahda codeynta si Soomaali Films. waa anigoo Muxsin Maxamed Siciida oo sidaa idinkaga tegaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.